shaqada madaxweynenimadu waa shaqo u baahan aqoon, waayo-aragnimo, daacadnimo, dhowrsanaan iyo aaminaad. Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi oo sanadkan u taagan xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa nin ka duwan intooda badan ragga xilka madaxweynaha soo maray iyo kuwa iminka u haqaltaagayaba. Dr. Cabdiraxmaan ma aha qof cusub oo la soo tijaabin, mana aha qof la soo tijaabiyay oo fashilmay. haddaba waa kuma Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi waa nin ku suntan wadaninimo, Soomaalinimo iyo daacadnimo. waxaana laga dheehan karaa muddadii koobnayd uu xukuumadda ka tirsanaa iyo raadkii uu ka tegey. waa wasiirkii kalluumaysiga ee khayraadka badda 2017 ilaa 2018. sidoo kale waxa uu muddadaasi ahaa xoghaynta guddiga dhaqaalaha ee golaha wasiirrada oo ka koobnaa 12 wasaaradood. waxa uu dowr muhiima ka soo qaatay barnaamijka dayn cafinta Soomaaliya, isagoo ahaa hoggaanka guddiga dhaqaalaha ee golaha wasiirrada ee wadaxaajoodka kula jiray hay'adda lacagta adduunka IMF. muddadii uu wasiirka ahaa waxa uu guntaday sidii dawladda iyo dadka Soomaaliyeed ay uga faa'iidaysan lahaayeen khayraadka badahooda dhex cagaaga. waxa uuna is-hortaagay kalluumaysiga sharci darrada ah ee ka socday badda Soomaaliyeed. dhaqaalaha Soomaalidu kuweeda kalluumaysiga sharci darrada ayaa waxaa lagu qiyaasay 600 oo milyan sanadkiiba. arrintani ayaa waxaa lagu sheegay inay asaaska ku hayso sababtii uu xilka wasiirnimada ku waayey. waa hogaamiyaha xisbiga badbaado qaran, waa aqoon-yahan shahaadada PhD-da ka haysto cilmiga maaliyadda iyo maaraynta dhaqaalaha. waxa uu muddo 8 sannadooda ka soo shaqeeyey hay'adda maaraynta maaliyadda ee adduunka uga caansan, fadhigeeduna yahay magaalada New York. 15 sannadood waxa uu ka shaqaynayay bangiga adduunka xaruntiisa Washington DC, halkaas oo ka ahaa la taliye sare oo dhinaca maaliyadda ah. Dr. Cabdiraxmaan waxaad ugu imaanaysaa qowl iyo ficil isleh. ku doora Dr. Cabdiraxmaan dhowrsanaan, khibrad, daacadnimo, aaminaad iyo waddan jacayl.